بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سoo dhawaada. Maanta waxaan bilaabi doonaa chapter 2gii. Sidaan chapterkeena hore kusoo dhiganay installation-ka aan soo qaadanay si loo install gareeyo computer loogu install gareeyo. Maantana waxaanu qaadan doonaa sida loo sameeyo setup company profile. Sidaan horta company-geenii u dejisan lahayn wixii uu ka shaqaynayay, shaqadu qabanayay, hawlihii uu dadka u qabanayay. Ayaanu maanta baran doonaa sida loo sameeyo bilowga. Deedna markaa QuickBook waa kan agar inoo mariyay options kana dooran doonta marka installation kugu dhameeyay waxaad oranaysaa general business enterprise marka intaas option buu leeyahay akhrisan doontaa cancel marka inagu select siinayna cancel dooran inta next ma oranayna deedna finish banu siinayna marka sugi marka qayb ka mid ah installation kii cashirkeena hore ka go'ay laakiin halkan aan ka sii wadi doono insha Allah. وقايا إن يربط مهير السنتران waxaan ku oranayaa muxuu ahaa update yar waxaan sameeyay maadaama internetka aynu ka xidhnay may noo wada oran doontaa oo crackna uu yahay marka markuu crack yahay haddaad update ku samayso waxaa ka baxaya license-kii iyo product number-kii deedna markaa ku qaban maayo shaqooyin badan waxaa isku dayeysaa marka inaanad muxuu ahaa aanad ku samaynin update maadaama aan wax badan aan ku kala duwanayn version-kan aan isticmaalana waa 21 22 ba ka dambeeyay waxba kuma kala duwana inta marka kusoo dhigo internet connection-kii ignore ma cancel kolba kaa doonto ayaad siinaysaa ignore baan isku odhanaynaa kaa inoo soo kacay عفوا first step-ka markaa aynu qaadi doonaa waxa weeye inaynu markaa company-geeni fadhiisino horta halkan markaa waxaad dooran doontaa sidii muxuu ahaa WordPress creating company profile require maxaad samaynaysaa where creating company profile for myself kaad option-kaas dooran deedna waxaad dooran markaa start deedna no iska odhan markaa halkan ku keeni hadaad aragto starskaasi waa required fields kuwa aan in laga boodo aanay ahayn inaad buuxiso ay tahay business name lagama maarmayo businesska ay ganacsigaaga lagama maarmayo markaa waxa doontaad u bixini marka inagu tusaale ahaan aanu bixina Adam electronics markaan idhaahno industrygii wuxuu ka shaqeeyaa markaa markaad oranaysaa muxuu ahaa general surface general product basic business iska odhan markaa muxuu ahaa business type-kii ma sole proprietorship ama partnership ma lagu leeyahay ma single member ba markaa solekaas ayaan dooranayna emailka anything ku fake haddaad hoos gelinaysaa markaa mid fake iska gelini amaba kaaga dhabta haddaad geliso wax micno wuxuu sameynaya ma jiro halkan muxuu ahaa phone number-ka waxaa alla waxaad socdaata si gelinaysaa alla waxaad doonto business address ergeysa baad ku odhan oo Soomaali dhana agana waa sidii waxa weeyaan waa hargeysa uun zip code-na plus 252 raaci deedna markaa intaas oo dhamayno create company profile baan odhanaynaa deedna yar intaas inoo wad yar sugi intuu create garaynayo
maadaama ay casharadiisu aad u dhaadheer yihiin waxaan isku dayi doonaa inaan soo koobo mid walba muxuu ahaa aad muxuu ahaa aad si fiican inteere conceptka unaan kasoo koobo. halka waxaan odhanayaa markaa inaanad offline time markaa skip badanaysa marka retry internetku doonaya inuu daatadan aad gelisay inuu internetka kuugu store gareeyo cloudka waxba waa baahan markaa skip baan odhanaynaa. skip markaa waxaan keenayaa main viewgii ama muxuu ahaa main interfacekii programka deedna programku saasuu u samaysan yahay markiisa hore. xogaa loading yar buu ku jiraa waan yara sugaynaa. haday first logi kale kuu koowaad ku tahayna waa ka programku haddaad hore isticmaashay oo inaad ku doonayso inaad muxuu ahaa aad sii kordhisatana waad aragtay. marka imika tan muxuu ahaa wuxuu ku samaynayaa muxuu toorka ama tutorialki wixii la yidhaahdo. marka internet ma haysano waa iska xidhaysaa deedna waa kan interfaceka muxuu ahaa programku san uu eegyahay. marka interfacekiisu marka chapter ku xigeen ku baran doonaa muxuu ahaa sida muxuu ahaa loo sameeyo alaabta loo soo geliyo wixii aad iibinaysay companygaagu alaabuhu iibinayo service ku qabanayay. chapterka kale saddexaad baa inoo sheegaya laakiin halka haddaynu overview ka bixino qaybtan dhexe muxuu ahaa customerskii baa la yidhahdaa. kan muxuu ahaa waa customerka orderkii dalabkii customerku dalbanayay isagoon weli waxba iibsanin loo sii sameynayay. kani waxa weeyaan waa invoicekii waxa weeyaan waa dayntii waraaqdii daynta lagu siinay markuu alaabta qaato. kani waa estimates baa la yidhahdaa wuxuu sameeyaa muxuu ahaa qiimayntii weeyaan markaad alaabtii u qiimeynayso intuu ku yimaado ku dhaanayo intaasaan doonaya alaabtaasaan doonaya tiro qiimaheedu muxuu yahay deedna estimatekaas aad u gelinaysaa. tani waxa weeye invoicekii markaad samayso markuu qofku lacagtii keeno muxuu ahaa invoicekii ka qabashadii weeyaan receive paymentkii lacagtii baad qabanaysaa. tani waa iibkeenii caadiga markuu qofku u yimaado alaabkaa qaadanayo uu ku dhaanayo alaabtaasaan doonayaa iga iibi deedna aad u siin lahayd muxuu ahaa aad caadi uga iibin lahayd. halkani waxa weeyaan waa bankinkii markaa accounts bankiga kama maarmayo inagoon kuwa real ku xidhin laakiin kuwa inoo kaydinaya muxuu ahaa lacagtii iyo alaabihii waxayna iibinay si aan la socon karno muxuu ahaa reportyadayna saasay u saxmaan ay xagga noogu yaalaan. halkan sare waa vendorkii waxa weeyaan halkan alaabta ka dalbanaynay interbills waa kharashaadkeen gelinaynay haddaynu alaab muxuu ahaa dalbanayno haddii companyga muxuu ahaa dayme lagu leeyahay haddii shaqaalaha lacagtoodii aad siinayso haddii lightkii aad bixinayso haddii aad muxuu ahaa aad bixinayso allahumma salli ala maxamed internetka oo kale aad bixinayso waxyaabaad bixinayso waxaan gelinaysaa marka hore baad gelinaysaa deedna hadhowna waa bixintii waa kan marna waxa weeyaan muxuu ahaa waa gelintii oo diiwaan gelinayso marna waa bixintii. marka intaas ka kooban yahay intaasoo sii faahfaahsan. xaggan waa companygii waa accountskii kuu samaysnaa ee bangiyadii waxay ahaayeen. xaggan item list baa dhahdaa alaabtaad iibinaysay iyo wixii baad ka helaysaa alaabtaa kugu kaydsan. haddana orderkii waa checkskii wixii weeyaan markaa intaa kaasi minoomaha laakiin intan adeegsan doonaa labadaas in aad ugu adeegsan doonaa companyga. bankinkana waxaan aad ugu adeegsan doonaa muxuu ahaa record depositka maadaama aynan bank caadi inoogu xidhnayn checkskani kuwana iyagana wax badan inooga anfacayaan. halkan waxaa la refund baa la dhahdaa maruu qofkii alaabtii oo kale uu ku qanci waayo ee alaabtii aad ka bedelayso oo kale tusaale ahaan uu iga celi ku dhahdo lacagtii u celinayso refund baa la dhahdaa halkaasaad gelinaysaa. dhaydku doono ha iibsado muu 5 bilood ka hor iibsado dhaydkiin baad raadinaysaa deednaad gelinaysaa alaabtii refund alaabtii waxay kugu noqonaysaa inventorygii lacagtiina waxay ka go-aysaa muxuu ahaa accountkii way ka go-aysaa una ku record garaynaya markaa inaad refund samaysay. markaa chapterkeena kalena intaas ku dhan yahay waxaan aad ugu daalayaa inaanay chapterada inala dhaadheeraanin si aanay muxuu ahaa waqti badan nagaga lumin. chapter ku xigeen ayaynu isla eegi doonaa sida loo sameeyo si alaabta loo soo geliyo sida muxuu ahaa loo diiwaan geliyo sida loo iibiyo sida loo dalbado waxyaabahaas oo dhanba chapterkeena labaad ayaynu ku eegi doonaa.